سهل ما هتعلينتو صبحي الله كينبا علمي باسو سيادي وسامية كونكي سفركي قدام سهل سوفت وير أيان دين سداي بوشي هموغان مرون مانكا مكو أيسي سمي سمري أما وبسيدة دنيادو أي حقاها كيلان موبا هانتاي هليد 10 موقال تيسر له كفايديسي 10 PDF أو تكنولوجيا كودي هانتاي سهل سوفت وير هوستين ادفرتايزمنت سوفت وير ديفلوبمنت ديزاين ويب وحركو xeeldheer samaynta website-da casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaan database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharro muhiim ku ah hamogaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web wixii faahfaahinta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanka kaaga muuqda shaashada hortaada hamogaanin sahal software. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله يعني مع محمد جامع يتيم كيسال سوفتوير والسلام إن دمانت الملك الصدافة عالم كتبتان وحين السعودية 10 دي كسب سنة برشاد كمبيوتر كا ما أنتو كله و10 كي برشاد كمبيوتر كا أنا أقول هاي رحتوجا هدات هاي أرض كعصب وحنكون مركز ويب سايت كسال سوفتوير.com سوقل مركز ويب سايت كسب وقتنا حقه هو سيدوس عن الساعة سيد ويك تدوي ما أنت السوق اللي كعصب وحتى كاتيجوري مع ciwaanka ku qoran tahay maanta iyo sahal software halka marka timaadidna wixii u dambeeyay website-ka la soo galiyay waa 10kii shalay 10kii 36 ee xisaabta oo aad ka soo baran kartay hadda ku cusub tahay xisaabtii oo taxana ah kana waa 10kii computerka 10 koobaad aan ka sameynay 10da noocan ah in ardaygu toos ula socdo 10kii oo ardayga loo tixgeliyo wixii hadba ku adag in laga caawiyo looga jawaabo website-ka waxa kale ku jira oo ka buuxa 10 fara badan oo computer science ah oo noocyo kala duwan leh oo heerar kala duwan leh kuwaasna adigu ayaa isbari karaya mid kasta videos waa ku diyaar oo ka dhex baaran karaysaa laakiin kuwan way ka duwanaan doonaan qaabka xisaabta kale ay u socon doonaan hadii alla idmo 10 kastan oo isleegi doonaa su'aalaha ku dhex jira iyo sida looga soo shaqeeyay iyo sidoo kale hadii uu jiro arday u baahan in wax laga caawiyo oo isna halka ku soo qori doona bal 10ka koobaad oo maalimada darrada la soo galiyay isla eegno su'aasha ku dhex jirtay iyo cidda ka soo shaqeysay hadii aan 10kan hore la socon halkan ay ku qoran tahay 10ka koobaad ee casaanka ah ayaad ku dhufanaysaa si aad 10ka u soo daawatid haddii aad hore u daawatayna halkan jawaabta halka hoose ayaad ku soo qoraysaa ku tusi doono halkan waa linkiga ama meeshaad kala xiriirsid macalinka 10kan diyaariyay si haddii wax gaar ah u baahan tahay inaad weydiisid ama caawimo u baahan tahay ama aad talo iyo tusaale u haysid isaga oo wax ku biirinaysidba aad toos u xiriir karaysid xagga hoose markaan aado su'aasha marka 10ka soo daawatay laga sugayo hadii su'aal ama laba ama saddex ba tahay jawaabta halkan ay ku soo qoraysaa magacaaga qoraya email address-ka qoraya website-ka qoraya comment-ka ku qoraya hadda jawaabta wax ku soo baxday sidoo kale hadii aad arday cusub tahay iska ilaali magacyada ardayda isticmaalaan hadii magacaaga hore loo qaatay magacaaga wuxuu ku daraa magaca aabaha ama kaawgaas raacso si aad uga duwanaato ardayda hore 10ka la socotay waxa 17 jawaabood ayaa muuqanaya 10kan koowaad ba in laga soo jawaabay 10kood ma sha Allah wahagaag لول حسن waxay soo qortay macalinkayga waxa ku qoran Windows 8 dabcan su'aasha aan dirayna waxay ahayd balse aan isla jaan qaadno anoo ku tusay computerkayga waxa ku duuban Windows ku duuban nooc ahaa ina adiguna aad soo eegtid Windows ku duuban computerkaaga marka jawaabta soo baxday lul waxay tir computerkayga waxa ku duuban Windows 8 halka computerkayga ku duuban Windows 8.1 haddii aan 10ka daawana fadlan ku noqo xagga sare 10ka soo daawo Yacquub wuxuu yiri computerkayga waxa ku duuban Windows 7 ayaa ku duuban sidoo kale Yacquub mar labaad ay soo qoray computerkayga waxa ku duuban Windows 7 علي أي سنة يموقني وحير معنا كمبيوتر جوادل وحنا كقرا ويندوز 8 ونديدي ويندوز 8.1 حان يلا معلم أوكي سؤال هذا جوابتي دبان كتشابية عبد الرحمن وحير معلم كيجو وحي يقدم ويندوز 7 بكمبيوتر كدوم بيل جامع أقول وحير مهندس إنجنير هذا يا مدن جامع صاحب عبد الفتاح علي عبدي معلم كيجو ويندوز 7 يسوقري علي وحمر الله سوقري سوري معلم كيجو ويندوز 10 بروفيشنال سنة كيسون والله كوني عشان يتوان مايكروسوفت كوربوريشن all right reserved ساسا معنا كل صحيح سؤاشي ثانك يو وصح سيفي عم بدنا نوصل قتي فرح عبدي وحير أنا وحي يقدون ويندوز 7 بروفيشنال حاو معلم كي وحكو قرن بيتر ويندوز 8 سينا بحيتر وحكو قرن ويندوز 8 سينا مركله ويندوز 8 برو أي رأسا بيلادها حاو حسوا قرتي ويندوز 8 أي خطوبا عبد الفتاح اوق wuxuu soo qoray macalinkaygu waa Windows 7 Enterprise Samir wuxuu soo qortay kayguna waa Windows 8 Professional Ahmed aniga kaygu macalin waxa ku qoran Windows 7 Home Premium Abdirashiid Maxamedna wuxuu soo qoray macalinkayga waxa ku arkaa
Windows C kaliya horta waxa igu soo noqnoqotay oo arday kale oo xagga Facebook igala soo xidhay ay ii sheegeen in la yihiin ba computerkooda waxa ku duuban oo ay computerkooda desktopka uusan saarnayn ba meeshii aan kulahaa ka baaro haddaan halkaas la eegno aan ka ku celiyo haddii computerkaaga sida kan oo kale hadeer kaygan oo kale aad ka weydid this PC ama my computer kale aad ka weydid halkan hoose folderkan yar ee halka iga muuqanaya haddii aad computerkaaga ku haysid ama folder kale ku doono noqday meelaha uu saaran yahay folderadaas mid kamid ah ku dhufo kaaba ku dhufo marka ku dhufatid waxa soo baxaya sidan folderkaygan oo kale ama this PC waxan oo kale ayaa ku soo baxaya dabcan oo ama wax u dhow ayaa ku soo baxaya ajladahan C iyo D iyo E iyo xalaqada magaca kale ku qoran ku soo baxaan laakiin halkan dhinacan bidixda ah kayga waxa ku qoran this PC halka dhinaca waxaad ka eegtaa computerkaaga my computer oo kale ama computer kaliya ama wax u dhigmo computer ku soo wareegay halka marka waxaas marka aragtidna kaas baad mouse-kaaga dhanka right-ka inta mouse-kaagu wuxuu leeyahay laba badhan ayuu leeyahay oo click iyo right click la kaliyaado right click marka waxa leeyahay dhanka midigta xiga ayaa waxa leeyahay maxay right click kaas ayaad right click siinaysaa oo ku hal mar ku dhufanaysaa marka ku dhufatay daaqad noocan oo kale ayaa ku soo baxaysa daaqadaas waa khasab ku soo baxaysa ama wax u dhow ku soo baxaya daaqada xaggeeda hoose waxa ku qoran properties ka sayid ku dhufanaysaa kadibna waa kan ii muuqanaya waa kan Windows 8.1 Professional Pro ayaa ku qoran marka Windows 8.1 adeegaaga marka halka ama Windows 7 ba ku qoran ama Windows 8 kaliya ku qoran ama Windows 10 ama Windows 10 ba ku qoran ama Windows XP ba ku qoran isan muxun ba ku qoran ka aan ku dirno ka kaliya ayuu ahaa oo ah computerkaaga Windows ku duuban inaad sheegtid oo soo sheegtid si aan isla jaan qaadno waxaan filayaa marka ardaygii desktopka banashashada ka waayay my computer ama this PC ba ka waayay inuu hadda ila fahmay meesha uu ka helayo una marka haddii hore u waayay uu isla maanta ba casharkan kaga soo jaabi doono oo oran doono kayga waxa ku duuban Windows noocaas ah sida tusaale ahaan Cabdirashiid Maxamed oo kale waxaan ka doonayaa marka Windows C kaama rabo inaad halka hadda aan aad soo tijaabisid dibadna aad soo qortid Windows computerka ku duuban oo su'aasha aad ka soo jawaabtid ay ardayda kale ka soo jawaabina ay ka soo jawaabaan oo casharkan maantana su'aashaas waan ku dirayaa ardaygii soo jawaabay isagoo okay kii aan ka soo jawaabin hore waan ka doonayaa su'aashaas inaad ka soo jawaabtid intaan su'aasha labaad leeyahay casharkan ku dirin ardayda soo jawaabtay waxa ka muuqanaya aad aragtaan waa saddex version oo Windows ah waa Windows 7 Windows 8 Windows 7 Windows 8 ee xagga professional noqdo kan interpersonal noqdo waa Windows 7 kii weeye kana Windows 8 kii Windows 8 iyo waxa ii muuqanaya hal arday oo isagu soo qoray mise dhamaantood waa Windows 8 sida ka muuqata adimo Windows 8 iyo Windows 7 iyo Windows 7 okay waa hagaag wax 8.1 ah computerada kuma jiraan dhamaantood waxa ku duubani waa 8 iyo 7 iyo 10 ardayda hadda ila socota okay haddaba si aan isla jaan qaadno oo fahamka casharka uu idin baxo waxaan isku dayi doonaa ardayda Windows 8 ka computerkooda ku duuban yahay in casharadan aan u badiyo Windows 8 ka oo aan isku dhex wado casharadan taxanaan noqonaya Windows 8 iyo Windows 8.1 waayo labada version waa laba version isku xigay midna wuxuu soo baxay 2013 midna wuxuu soo baxay 2012 farqi fara badan na uma dhaxeeyo sida darteed marka waan isku dhex wadi doonaa ila soco ardayda computerkooda ku duuban Windows 7 ka si aynu isla jaan qaadno casharkan aad u fahantid waxaan ka codsan lahaa in aad computerkaaga ku soo shubtid Windows 8 ama Windows 8.1 hadba kii ku fudud ardayga Windows 10 ka ah cali isagana waxaan ka codsan lahaa inuu Windows 8 ama 8.1 computer ku soo shubto waxa la yaabaa isweydiina sidee computerka loogu soo shubayaa Windows 8 ka looga tirtirayaa Windows 8 waxaan leeyahay 7 ka looga tirtirayaa 8 loogu soo shubi karayaa ama Windows 10 ka looga tirtiri karaa oo Windows 8.1 ama 8 loogu soo shuban karayaa arrintaas way fududahay inkastoo qofka computer ku cusub ay ku adag tahay oo uusan horey ka sameyn karayn laakiin waxay u fududahay qofka farsamayaqaanka ama computerada ka shaqeeya ay u fududahay dabcan magaalada aad degan tahay aad ku nooshahay waxay leedahay meelo computerka lagu sameeyo ama lagu hagaajiyo ama waxaa jirta asxaab cilmiga aad u taqaano aad garanaysid oo magaalada kula joogta cid un la kaasho oo computerkaaga Windows 8 ama 8.1 ku soo shubo ku shubistu waqti fara badan ma qaadanayso 30 daqiiqo meelaha kama badato haddii u badato waa 30
saacad ba ku siidaa oo qof computer geli karo wuxuu ku shubi karaa Windows 7 geli kartaa wuxuu ku shubi karaa Windows 8 feedkina wuxuu ku shubi karaa Windows 10 dib ma jiro laakiin marka hore waxaan koonaysaa isla jaan qaadno oo casharada aad u faahantid si taxanaa aad u faahantid aadna marka u faa'iideysid Windows 8 ku soo shubo computerka ama 8.1 ku soo shubo waayo waqti wada istaa maanta wada haystaa برينا واضح وخميس وفصح جمعان وفصح سبت إن حسابها سوق لسه أحد أي سوق لي 10 كصدحات يكوس على الكمبيوتر مركا أفر 10 لين بطيس أفر 10 وتكسر شو بنك الكمبيوتر كله سعيد أما 8.1 مركا تاسع يعني طلب بوسينية إنها تكسر شو بتين مركا سي براكتيكال أيام مركا 10 كستو عن سمايو أدي قصد بسمين أنت سي مركا كل الكمبيوتر سوق وكان أدي سوقتي وأي هدي الكمبيوتر ويندوز 7 وياهي oo 10 Windows 8 ama 8.1 aan sharaxayo waxa laga yaabaa meelo badan inaad ka weydid computerkaaga oo aad ku wareertid oo aad tira macalinku waxan uu sameeyay aad ka daba sameey oo aad sameyn karwaysid hadii duruuf kasta ku haysto oo ay kuwa suuragal weydo inaad Windows 8 ku soo shubatid hays dhibin 7kaaga waa yahay iska joog casharadan iska daawo wixii Windows 7 ka qusayna ka samee wixii Windows 8 ana farax ka qaado ha sameyn oo concept guud ama faham guud ka qaado ardayga Windows 10 ka ugu jiro ee calina isagana si asal lamada ayaan xal leeyahay caliyow Windows 8 ka horeeyay marada tan haysto fiicanta kii u dambeeyay ee hadda soo baxay 2015 ka sanadkan ku jirno ayad haysta ma sha Allah aad baad u horeysa aad baad u fiican tahay laakiin si 10 kan aynu isla jaan qaadno waxaan kugula talin lahaa in adiguna Windows 8 ama 8.1 aad ku soo shubatid waan ku sheeko shubistu saacad ugu badnaan saacad ka badan karto hadii duruufuhu ay ku saamixi waayaan inaad ku shubatid ama aad weydid bicid kugu shubta haysdib Windows 10 kaaga joog oo 10 aan dhigayo iska daawo wixii ka quseeya ka samee oo waxa ka quseeya waxaan uga jeedaa Windows-yada maadaama hal shirkad ay sameysay oo Microsoft ay tahay ama 7 ha noqdo ama 8 ha noqdo ama 8.1 ha noqdo ama 10 ha noqdo ama XP ha noqdo wax fara badan waa isaga mid meel ayay ku kala duwan yihiin marka meelaha ay ku kala duwan yihiin hadii computer Windows 10 uu yahay ha isku wareerin ay Windows 8 kala soco hadii alla idmo intaas ayaan markaa kaga jawaabayaa su'aalaha ka soo jawaabteen aad baad u mahadsantihiin isku day fiicanna waad sameyseen talaabada koowaadna waad ila qaadeen halkaas aan ka wadi doonaa hadii alla idmo waxaan ku dirayaa markaa laba su'aalood oo ku saabsan 10kii kan ka horeeyay ee koobaad ku quseeyay haddii 10ka daawato si fiican u fahantay labada su'aalood ka soo jawaab waxaan soo yiri computerku wuxuu ka samaysan yahay ama ka kooban yahay laba shay labada shay computerku ka samaysan yahay ama ka kooban yahay computerka dhan ka kooban yahay waan ku soo sheegay labada magacyadooda ayaad soo qoraysaa labada magacyadooda ayaad soo qoraysaa waa su'aasha koobaad su'aasha labaad aan ku dirayo waxaan soo sheegay software-rada computerka in loo qaybiyo laba qaybood oo waaweyn hadhow qaybahaas ayaa farac yeelan doona labadii qaybood magacyadoodii iyaguna waan soo sheegay iyo qoraalna in shaashadaada ay ka muuqanayaan ayaan rajaynayaa 10 koobaad oo qaybta editingka ay ku soo dartay marka labada su'aalood ayaad iga soo jawaabaysaa waa su'aasha koowaad maxay computerku muxuu ka kooban yahay talabaadna waa maxay category-ga software-rada loo qaybiyo ama labada qaybood ee software-ka loo qaybiyo magacyadooda soo qor computerka labada shay ka samaysan yahay soo qor labada su'aalood ayaan ku dirayaa su'aasha saddexaad aan ku dirayo waxa weeye ardaygii ka soo jawaabay computerka Windows 7 ama 8 ama 10 soo sheegay isaga lagama rabo ardaygii aan ka soo jawaabina ku adkaatay waan hadeer ku tusay meesha aan marayay aan ka eegayay computerkayga ku duuban hadii aan desktop ka waayay fadlan adiguna soo samee oo soo sheeg computerkaaga waxa kugu duuban si aynu isla jaan qaadno saddexaas su'aalood ayaa idinku maqan laba su'aalood waxay gaar u tahay ardayga 10 kan dhiganaya maanta 10 shalna daawaday ee su'aasha la ka soo shaqeeyay ardayga kale aan ka soo shaqeynay saddexaas su'aalood aan ka doonayaa inta hadaan ka gudbo bal haday la daawo 10 kan maanta hadii alla idmo Windows 8 kale waxa la sii daayay ama la sameeyay 2012 sida ku cad website-ka ay leedahay sidoo kale waxa ka horeeyay Windows 8 Windows loo oran jiray Windows 7 oo la sameeyay 2009 Windows 7 kana waxa ka soo horeeyay Windows loo oran jiray Windows Vista oo isagana la sameeyay 2006 Windows Vista waxa ka soo horeeyay Windows loo oran jiray Windows XP oo la sameeyay 2001 طبعا marka 1980 ilaa 2001 wad garan kartaa inta sano u dhaxaysa iyo versionada soo bixi karaya inta ka badan hadaa rabtidna website-ka software ka baaro ama Google-ka weydii waxaan waa versiono kala horeeyo isku xigay wali xilligan aan joogno waa la isticmaalayaa Windows 7 oo computer Windows 7 wada arkaysaa kuwa Vista ku duuban wada arkaysaa kuwa XP ku duuban yahay wada arkaysaa inkastoo XP supportigiisa ay joojisay shirkaddan sameysay ee Microsoft 10kan ku muuqda waa 10kii labaad oo ku saabsan Windows 8ka waxaan ku eegi doonaa daafurka Windows 8ka waxaan eegi doonaa Windows 8ku muxuu kaga duwan yahay Windows-yadiisa ka horeeyay
maadaama aan casharkii ka horreeyay kusoo sharaxay Windows-yadu in ay lahaayeen versiono kala duwan oo Windows 8 kale waxa ka horeeyay soo sheegay casharkii hore Windows 7 Windows 7 kana waxa ka horeeyay Windows loo jiray Windows Vista waxaan ka soo horeeyay Windows loo jiray Windows XP طبعا marka hadaynu eegno marka Windows 8 waxaad weydiinaysaa maxaa marba Windows cusub u soo baxaya maxaa mid kale loo isticmaali waayay waa su'aal meesha ku jirta isweydiin mudan marka waxaan eegi doonaa marka waxa uu kaga duwan yahay Windows 8 Windows 8 ka horeeyay waxaan ka soo diyaariyay 8 qodob ayaan ka soo ururiyay oo aan rajaynayo inay ku kala duwan yihiin Windows 8 ka horeeyay kaga duwan yahay Windows 8 oo ah barnaamijka dara barnaamijka 8 qodob aan soo ururiyay ama 8 point aan soo ururiyay waxa kamid ah ka ugu horeeya waxa leedahay start screen Windows 8 ku start screen waxa kugu qoran yes ayaa kugu qoran yes macnaheedu waxa weeye waa Windows 8 ku wuxuu la yimi daaqad leeyahay start screen oo isan lahaan jirin Windows-yadii isaga ka horeeyay 7 ka noqdaan ama kuwa ka soo horeeyay start screen ku waa daaqada u horeysa marka computerka aad soo daartid ee muraayada madow uu inta badan u dhaafo waxa ku xiga Windows computer ku doonay inuu ku soo kaco hadii Windows 8 uu yahay marka uu soo kacay Windows 8 baarka doonta marka uu soo kaco muraayada madow u dhaafo wax yar kadibna daaqad start screen leeyahay ayaa computerka isku xidhaysa waa hadii computerka uu leeyahay ama uu kugu duwan yahay Windows 8 daaqadaas waxa leeyahay start screen daaqada xagee laga helayaa meelo badan ayaa laga heli karayaa halkii aan joogo marka rabaa inaan start screen tago waxaan sameyn karaa 3 wado ayaan ku heli karayaa mouse-ka inaan soo kaxeeyo oo aan koonahaas geeyo dabadna halkan soo dhex socdo kadibna ku dhufto meesha ay ku qoran tahay start halkaas waxaan ku tagayaa marka start screen wana daaqadan weyn ee hadarta ii muuqata ayaa xaleeda start screen طبعا computerka haduu Windows ku duwan yahayna waa daaqad markasta aad aragtid kadibna marka daaqadan aragto waxaad ka sii gashaa desktop haddaan desktop ku dhufto waxaan arkayaa casharkaygii aan hadda sharaxayay start screen-ka waxaan kaloo ka heli karayaa inaan mouse-ka soo kaxeeyo koonahan hoose halka hoose hadaan geeyana waxa ku muuqata meel ku qoran start haddii aan ku dhuftana waxaan tagayaa xagee isla start screen-ka ayaan tagayaa waa laba option ama laba wado aan ku tagi karo start screen-ka wadada saddexaad waxa weeyaan inaan keyboard-kayga iska taabto calanka yar ay leedahay ama sumadda ay leedahay Microsoft Windows 8 ku inta badan alt-da ka xiga dhanka bidix badhanka alt ay dhanka bidix ka xiga iyo control ay u dhaxeeya keyboard-kaaga calaamad yar waa calan yar oo ku sawiran haddii calanka taabtana waxaan toos u tagayaa start screen-ka ayaan tagayaa dabcan kaasi waa qodobka labaad uu kaga duwan yahay Windows-kan Windows-ka kale waxa kamid ah wax la tiles waxa weeye markaan start screen-ka joogo halkan waxaa saaran application-nadii ama barnaamijyada computer ku duwan dhanba halkan imaanaya hadda si ka aan rabaan si fudud halkan uga galo start screen uga galo qaabkan barnaamijyada halkan ay u yaalaan ee application u yaalaan ayaa asaas ayaa waxa la tile ayaa la tiles waxa jira wax la yiraahdo live tiles live dabcan garanaysaa wax soo soconaya oo dhaqaaqaya marka waa tileski soconayay dabcan hadda start screen-kaaga aad saaweegtidna wax yar kadib waxaad arkaysaa kuwa soconaya oo isrogaya kuwaas ayaa la oranayaa live tiles ayaa la oranayaa markay isrogaan waka hadda sida dabcan ka isrogaya wada jeedaan indhaha ay ku muuqda indhaha ayaad ku aragtaa ayaan filayaa waayo computer science-kiisaba waxa la yiraahdaa waa itus ay taabsi casharkan aan sharaxayo mid kasta ku taabsiinayaa adiguna hadhow iga daba tijaabi wixii aad fahmi weydina adresada shaqadu ay leedahay nagala soo xiriir si laaga caawiyo waxa jira wax la yiraahdo qodobka afraad waa chamber uu leeyahay waa yes chamber waxa la yiraahdaa koonahan haddaan mouse ka kaxeeyo aan koonaha sare geeyo ee dhanka sare top oo waliba midig ah waxa ku muuqanaya toolbar yar ayaa soo baxaya toolbarka haddaan ku dul socdo kan ayaa waxa la yiraahdaa hadda ku muuqanaya search leh raadinta leh share leh start screen-ka leh devices ku jiraan setting ku jiro ayaa waxa la yiraahdaa chamber halkaas ayaa leedahay waxa kale jirta meel yado hot corner oo uu leeyahay Windows 8 ku kala aysan lahayn hot corner ku xogay haddaan dabcan start screen-kaygii oo dabcan application kala furto si ka soo qaad kan oo kale ayaan furtay application sa ay horyaala ee u furan haddaan rabo inaan ku noqdo casharkii hadda aan sharaxayay iyo meeshaan joogay koonahan chamber-ka ma koonaha kale waa opposite-ka chamber-ka ayaan tagayaa waa koonahaas dabadna waxaad arkaysaa barnaamijkii kale ee ku furnaa dabadna haddaan dhaqsiyo waxaan toos tagayaa casharkii aan sharaxayay waxaan filayaa inaad taana si fiican u aragtid waxa kale oo jira barnaamijkan wax la transparency effect waa nooc oo malaha transparency effect waxa weeye sida ay Microsoft cadaysay Windows-yadii ka horeeyay Windows 8 marka uu computer soo kacayo Windows ku soo kacayo culays badan ay lahaan jirin inta aan la gaarin desktop-ka سادرت transparency effect way ka saareen say xaqiijiyeen waxay removal bay yiraahdeen ka saareen yiraahdeen oo Windows 8 kana si practical markaad soo daartid waad arkaysaa inuu si fudud u soo kacayo oo dhagan nugul taas ay xalay transparency effect waa no halka kuwii hore ay yes ahayd
tabletku oo qodobka toddobaad ee uu kaga duwan yahay Windows-kan iyo Windows-ka Windows-ka ka horeeyay waxa weeye tablet waxa la sida computerka waxa loo kala saaraa on original desktop iyo laptop nooc saddexaad ayaa soo baxay tablet oo muddooyinka u dambeeyay aad loo isticmaalay dunida casriga laga isticmaalay tabletku waa nooc yar sawirka ku muuqda ayaa ka arki doontaa tabletku waa nooc ka yar laptopka desktopkan iska bedel xafiiska laga wariyo laptop marka waa nooc ka sii yar oo gacanta aad ku qaadan karto iska fudud ayaa xalay tablet sida sawirka ku muuqanaya uu yahay tabletkaasna waxa looga jeedaa yes macnaheedu waxa weeye Windows 8 waa lagu duubi karaya tablet kaliya telefoonada yar oo dhan ku noocyada u damay telefoonka oo dhan waad ku duuban kartaa Windows 8 operating system ku duuban Windows 8 noqon halka tabletka iyo mobiladuba Windows-ka ama operating system ku shaqeeya waxaan jiray mid ka duwan kan Windows 8 ama Windows 7 ama 15 kuma ay shaqeyn kareen laakiin Windows 8 ku shaqeyn karayaan waxaan ku soo gabagabeynayaa pointiga Windows Defender antivirus program yes Windows Defender waa antivirus program si ku muuqata oo Microsoft waxay xaqiijisay in computerka lagu duubo Windows 8 uusan inta badan u baahnayn antivirus waayo waxaan ku soo duubnay ay leeyihiin oo default ku ah oo building ku dhisan Windows Defender waxa la yiraahdo oo ah antivirus program difaacaya oo ka ilaalinaya waxyaabaha viruska khatarta ku ah computerkaaga عشر كنا هالكاسين كسو كوبيا ودي أرجعوا 10 كسدحات هدي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.